السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel walba dunida ka joogtaan iyo goor kasta joogtaan kusoo dhawaada TV-ga qaranka Soomaaliyeed codka Jamhuuriyadda Soomaaliya studiyaha magaalada London waxa TV-ga qaranka Soomaaliyeed lagu soo booqday Yusuf Maxamuud Sheekh oo nooga yimid wadanka Norway oo markuu London yimid jeclaaday in uu bahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed uu u hambaliyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna uu hambaliyo halkan uga mariyo kooda luli kusoo dhawow Yusuf Maxamuud Sheekh studiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada London waa dhawahay aad iyo aad waa mahadsantahay cali ar aadaan mudanaad baan ugu faraxsanahay in qof uu wadan kale nooga yimid markuu yimid jeclaaday inuu noo hambaliyay aad baan ku soo dhaweynaynaa Yusuf TV-ga qaranka Soomaaliyeed dabcan waa aragtay sida uu shaqeeyo halkan hawsha aan ka wadnay TV-ga qaranka Soomaaliyeed amar walba daawataan maxay tahay barnaamijyada iyo mowduucyada aad jeceshahay markii TV-ga ka socdaan horta alxamdulillah maanta haddii aan helnay TV qaran Soomaali oo yani aan guryaheena aan ku daawo karno sababtoo ma aan haysanin muddooyinkii sidii dawladii yani xilligii nabadda wixii ka dambeeyay cod yani TV ku hadlaayo cod dawladeed ma aan haysanin marka mar walba markaan aragno TV-ga qaranka Soomaaliya magacaasa wuxuu leeyahay magac weyn oo la rajgelinayo mar walba marka barnaamijyo aad u jeceshahay markay socdaan barnaamijyo waa jiraan oo aad iyo aad aan u jeclahay qaasatan barnaamijyada gaarka ah waa soo diyaarisaan magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda sida magaalada isku bedeshay dadka yani ku nool jidadka magaalada mar walba yani waxaa nagu dhasho dhiirigelin iyo jacayl wadanka inaan soo xasuusan aad u maasantahay waxaad iga warantaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed fursadan uu ku siiyay maadaama sidii ku soo booqatay koodii luliyana hadda ay dhowdahay yaad jeceshahay halkan inaad hambaliyo uga diri alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan soo booqday telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo isiiyay kaasoo ii suurtageliyay inaan halkan ugu hambaliyeeyo kooda luuli dadka aan jeclahay waxaan u hambaliyaynayaa marka ugu horeyso ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa hooyaday qaaliga Xabiibo Nuur Caraale iyo walaalahay dhammaantood reer Maxamuud Sheekh meel kasta ay dunida ka joogaan waxaan kaloo si khaas ah u salaamayaa xaaskiga qaaliga Zahra Ibrahim Maxamed iyo wiilasheeda saddexda Cadnaan iyo Maxamed iyo Axmed intaasaan u dirayaa salaam dad kale oo aad saaxiibada ay fadhiisay waxaan ayaga sidoo kale aan salaamayaa bahda telefishinka qaranka Soomaaliyeed qaasatan saaxiibkayga Cali Ar iyo agaasimaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed aad baa mahadsantahay annagana aad baan ugu faraxsanahay in aad studio nagu soo booqatid aad baa mahadsantahay waxaan wali bartan kaga jirnaa barnaamijkeennii hambaliyada kowda luulyo ay shacabka Soomaaliyeed isku gudbinayeen waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed studiyaha magaalada London wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hambaliyada kowda luulyo ay shacabka Soomaaliyeed intii ka gaarta intiina soo booqata iyo inta khadka telefoonka ka soo qayb qaadan doontaba ay hawada isku marinayeen waxa hadda ila fadhiya oo dhinacayga midig fadhiya mid kamid ah farsamayaqaanada dhalinyarada ah ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Caamir Mawlid Caamir Yare oo dadku ay u yaqaanaan Caamir Diblow oo runtii ragga farsamayaqaanada TV kamid ah Caamir marka lagu soo dhawo mikrofoonka studio TV-ga qaranka Soomaaliyeed maadaama aad adigu ahayn dadka studio lagu soo dhaweynayo laakiin aad tahay dadka mikrofoonka lagu soo dhaweynayo waa maasadahay maxaa Cali Ar sidoo kale waxaan salaamayaan shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed aan maamulka TV-ga qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan mahadcelinayaa farsamayaqaankana iyo wariyahana Cali Ar aad u mahadsantahay Caamir Yare su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo xitaa adiga dhinaca gadaale mar walba lagu arkaa TV gadaala fadhida waxba ama edit karaysaa ama wax ka faraysaa ama duubta way horey ma weyd runtii aniga maanta hore soo fadhiista laakiin ma jecli waxaa jeclaaday inaan iska fadhiisto dhinaca gadaal oo farsamada wax soo fadhiisto dhinaca wariyaha iska fiican kaamirada waxa sidaas maxaa mar isku diiwaydo waxaan xataa barnaamij yar oo fan ah hadda oo isku day waa jeclaa laakiin nidaad waxa u jirtaa in farsamada waxa sameeyo iyo barnaamijyada waxa sameeyno marka kama heshid in aad TV-ga hor imaadid oo kaliya wax jecesha inaad kaamirada gaal ka joogto kaamirada joog iyo farsamada wariyaha wax ka duubalay waan gartay hadda caawa ana ku soo jeedo meesha ku keenay maxaa dareemaysaa markii aad kaamirada hor fadhidid wallahi waxyaalo badan dareemayo laakiin dhinac waxa way waan naxsanahay
dhinaca laakiin waan ku faraxsanahay so waxaa jeclaa dad badan inaan TV iyo arkin lahaa maanta aa arko waan gartay daawadayaal Camir Dhiblow waa kana waxa laga yaabaa in badan inay magaciisa ay ku arkaan barnaamijyada farsamada Camir Dhiblow waa mid kamid ah farsamayaqaanada TV-ga qaranka Soomaaliyeed Camir waxaan bartan kaga jirnaa hambaliyadii kowda luulyo waxaa foodan ugu soo haysa ama aan ku jirnaaba kowdii luulyo waxaad kamid tahay ummadda Soomaaliyeed dabcan TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxa uu dhalinyarada dadka Soomaaliyeed basiinaya hambaliyada fursado oo ay uga faa'iideysanayaan adigoo kamid ah farsamayaqaanada TV-ga qaranka Soomaaliyeed maanta mikrofoonka hor fadhiya kaamirada yaad uga faa'iideysanaysaa halkan yaad ka salaamaysaa halkan yaa hambaliyada uga diraysaa kowda luulyo cali aar waa mahadsan tahay waxaan salaam u dirayaa madaxweynaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka waxaan salaam gaar u dirayaa hooyaday Siraad aabahay walaalahay walaalaha magacyadooda ma noo sheegay walaalahay laakiin ma dhihi karo magac matrika laakiin all of us soo qaadan Waa isku soo qabanaysaa. isku jamac leh ما شاء الله يا كلو تعشى إن هذا الكن كسلانتين waxaa kala salaam jeclaa laakiin xaq guriyaasa cali aar socotee Layla asmaa wiish ma soo koobi karno wariyaasha في غرق صان gaar ahaan TV qaranka qaybta Soomaaliya salaamaya qudisho وانقرتي مثلا صاحبات سليضة سيجارو حنبلية أنا قفت سيجارو سلاميس wallahi billahi laakiin ma dhihi karo all saaxiibay laakiin all yaqaan waa salaamaya هاي وانقرتي إن واحد كم يتاعي تيفي فرصة بيقانا ديسي ملقى هذا إن مرنا إسكو ديدي لو أنا هن إن انترفيو سميسي haddii isku day wax yar هاي dadkaan tusay caawina aad ku raysa jeclaa leena haa isku day إن أنا يوريستي آه. أوكي هاي جون cali ar noo war maalintii koowaad warka akhrisis maxaad dareentay runtii maalintii koowaad aan warka akhriyay may ahayn TV qaranka ma ka shaqeynay TV kalan ka shaqeynayay aad ay ugu adkayd sababtoo ah hadda markii aan dib u fiiriyo wuu duuban yahay wuu yaalaa YouTube ku jira markaan dib u fiiriyo horta khalad badan aan sameeyay haddana markaan ka soo gudbay maaragtay dib markaan hadda u fiiriyo asagoo xataa la saxay haddana saasay tahay weli maaragtay waan dareemayaa inuu wax khaladaad badan ku jiraan cabsi badan baa u jirtay kaamirooyinka leerarka wax badan laakiin waxaa ka horreeyay barnaamijyo live oo horaan samayn jiray midda kale warka waxaan tireerin ugu jiray dhowr adigu 3 bilood camal tireerin ugu jiray markii aan imid oo ugu horreyso barnaamij live war live ah maxaad dareentay maalintii warka akhriyeys waxaan dareemay mas'uuliyad waxa jirta markii aan war akhrinaysid waddankeeni waxa ka warqabtaan hadda maamul goboleedyo kala gedisan baa ka jira hadda maamul goboleed sheegtid wixii maalintii ugu horreysay qabsaday waxa kamid ahaa maamul goboleed maalintii ugu horreysay oo newska aan akhriyay oo mar dambe akhrina asiri waxa jira maamul goboleed laba maamul goboleed oo kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira labadaba midna anigu aan runtii kama dhalan qabiil ahaan laakiin labadaba soo kamid bay yihiin iyo deegaan ahaan midna kama soo jeedo waxa dhacday marka maamul goboleed baa madaxweynihiisa waxa ay madaxweynaha maamul goboleedka hebel madaxweynaha kalena waxa ay madaxweyne hebel hebel mid kamid ah dhalinyarada iga duubaysay baa waxay dhaheen marka waxay dhaheen madaxweynaha dawladda Hiblaayo dheh aniga marka dawladnimo ma aqoonsanin maamul goboleed baan aqoonsana marka taas ay igu dareed waxaan ku yiri aniga maamul goboleed un baan aqaana marka taas ay igu dareed maalintii koow warka aan akhriyay haddana war live ku jira hadii lagu qabsado way ku adkaanay taas ay igu dhib badnayd darka hadii su'aal yar ku weydiin ma xasuusta maalintii kusoo birtay maxaa saxaafadda runtii waan xasuustaa waxaan ka shaqo bilaabay markii ugu horreysay idaacad yar oo internetka ku taal waxay ahayd 2 sano iyo bar camal ka hor bay ahayd marka idaacadan ka shaqo bilaabay yar marka waxaan markii ugu horreysay marka horta waxaan qori jiray aniga buug aan qoraa 2 buug aan soo saaray aniga aan leeyahay mid kale website-yada wax ku qoraa jiray wax ku qoraa caadi articles caadi sidoo kale journalada magaalada Muqdisho ka baxay 2005 kan soo bilaabay waxaan samayn jiray maqaalo oo yar yar baan samayn jiray ha maqaaladan u deeri jiray internetka journalada sidoo kale iyo internetka laakiin idaacad caadi ah ka shaqo bilaabo waxay ugu horreysay hadda 2 sano iyo bar ka hor marka idaacadii ma ka akhriyay macna barnaamijyo ka saari jiray marka barnaamijyada xataa anoo marka recording bay ahayn wax live ma ahayn ku raaxaysanaya marka idaacadii ugu horreysay kadib haddana TV-ga ka soo shaqo bilaabay TV kamid ah TV-da Soomaaliya TV-da Soomaalida dadka Soomaaliyeed gurigan ku yaala marka taas ay igu horreysay mid caadi TV live aan ka soo shaqeeyay ama saddex alaar so aniga waa aragtay wax wareystay laakiin waa markii hore waaye so waxa dareemay laakiin pressure هي سيد دريمس markii aad qof wareys ka qaadisid qofka uu kaaga sheekeynay wallahi waxa dareemay waxyaalo badan oo la soo koobi karin laakiin ma jeclahay inta wareysta next time hadii ilaahay oo guuriteena inaad khatar noqon doonto insha Allah mar kale hambaliyada kowda luuliyo shacabka Soomaaliyeed maxaa jeceshay inaad tiraahdo ama saddex alaar umad Soomaaliyeed waxa dhihi kara leeyahay waaye
sanadkaas sanadka ma ilaahay na gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo waddankeena nabad ah ilaahayna ha naga dhigo kuwii jiro oo jooga aad ayuu mahadsan yahay saaxiibkay Caamir Yar oo kamid ah farsamayaqaanada bahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed stuudiyaha magaalada London oo caawa aan keenay in uu halkan ummadda Soomaaliyeed uga hambaliyo dabcan inta kalena wada arki doontaan haddii ilaahay in barnaamijkan kowda luuliyo aan ugu hambaliyno dadka Soomaaliyeed dhammaan inta TV-ga qaranka Soomaaliyeed stuudiyaha magaalada London ka shaqeysa iyo inta kale ee na soo booqato ummadda Soomaaliyeed insha Allah waan idin soo tamin doonaa sidoo kale waxaan salaan hambaliyo kaliya dhaab ah anagoo isku duuban bahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed hawada u marinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed hambaliyo kowda luuliyo sanadkan sanadkiisa ilaahay nuu gaarsiiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo dalkeenana ilaahay ka dhigo kii jira oo jooga ummadda Soomaaliyeedna ummadda haybad iyo sharaf iyo cadaalad hoos harsata ilaahay ka dhigo intaan dib ku kulmi doono mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi